وأدك هاي فرحان ما أنت إن لهلو بوق علمي وديني وكيش عبد الله قطب بقول سنة قرية لما ما أنت لما هي موجودة مجرو وما أنت لقوري كرو نن عالم أو صومالي أو علماء ما أنت نتوب بوق أسقره دوتك السعودو قليش كإيو مصر إيو ما فرق لينكرو وحين دون الله كلك صورين محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد الأحمد اسمكي ساي آمنا إغاركت أبايدين فاضما يدكتوي أدوغت إمامك جبريل أبو بكر صديق إخوانكوت انتي الشهادة ليس دمان إمامكوت أحمد نورو أدو كلمة بلأوا من بسم الله الرحمن الرحيم فرحا waxaan rabnaa inaan caaw xusno 100 sano guuradii ka soo wareegtay booga cilmiga ah ee culumaa diinka Soomaaliyeed mid kamid kuwooda ugu waaweynaa oo qoray 100 sano ka hor ee la yiraahdo Majmac al-Mubaraka waxa qoray Sheikh Abdullahi ibn Muallim Sheikh Yusuf al-Qudbi wuxuu noolaa sanadihii 1881 wuxuuna dhintay 1951 boogan aan ka hadlayno wuxuu ku qoray magaalada Qaahira ee wadanka Masar maruu jaamacad ku dhameeyay 1919 ayuu booga soo saaray 1920 wuu qaybiyay marka 1920 booga waxa ku gubay magaalada Cadan Ingiriiska waayo booga wuxuu kula hadlayay dadka Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayay wax la yiraahdo moral guidance damiirkoodu hagayay diintoodu hagayay dadnimadoodu hagayay sida ay u falgali lahaayeen gumaysiga ula falgali lahaayeen ayaga isku la falgali lahaayeen solidarity dhexdooda u abuuran lahaayeen unity u abuuran lahaayeen ayuu ka hadlayay 350 book ka badan ka koobnaa laakiin booga waxa xumeeyay 50 page oo kaga hadlay dariiqada saalixiye oo ku cambaareeyay iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ku dharbaaxay marka tiya waxay abuurtay dad badan oo saalixiye waxay deganayeen Cadan oo booga keenay kuna degay oo masaajid ku qabtay muxaadarooyin inay dadka saalixiye kacaan oo ay sheekha la dagaalamaan tuuriyayaan dhagaxayaan sida hadda ribooradii colonialka Ingiriis ku qoran kadibna loo arko sheekha inuu yahay nin dadkii kicinaya ama Soomaalida dhexdeeda khilaaf ka abuuraya ama Ingiriiska ku soo jeedinayo 200 oo koobi oo booga ah ayay Cadan ku gubeen Ingiriisku marka Sheikh Abdullahi Yusuf al-Qudbi wuxuu ku dhintay markii dambe oo maantana ku aasan yahay qabrigiisu ku aasan yahay tuulada Qulunqul oo ku taal dhulka Soomaali galbeed halkaasuu markiisii horena ka tagay waxna ku bartay wuxuuna ka soo jeeday qoys culumaa diin ah aabihii awowgii dadkiisii oo dhan in badan xataa ilaa maanta nool awlaadiisii dadkii ka hara kamid ah ay wali dad diinta sii wada yihiin marka waxaana sheekh u ahaa sheekhi weynaa ee caanka ka ah dhulkaas Sheekh Cabdiraxmaan Saylici waxa kaloo sheekh u ahaa sheekhi xamar caanka ka ahaa qarniga 19aad diinta dariiqada qaadiriyada dhan hayay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Suufi oo sheekh maanta ku aasan qabuurihiisuna ka jiro tiyaatarka dhabarkiisa Sheekh Suufi sheekh weyn caalim ah la yaqaano culum badan soo saaro ahaa marka waxa muhiimka ah oo booga Sheekh Abdullahi Qudbi muhiimka ka dhigay oo ka duway boogaagta xilliga la qoray ee culumaa diinka Soomaaliyeed qoran waxay tahay booga sheekhan wuxuu la falgalayay oo uu dhaxgalayay dood weyn oo caalamka islaamka oo dhan xilligaas ka socotay boogiisa marka waxa amaanay oo tan yaab kale ay tahay sheekhi fadhiyay Lubnaan ee culumaa diinka waaweyn ee caalamul islaam u waaweynaa ee la oran jiray Sheikh Yusuf bin Ismaaciil al-Namhani booga wuxuu ku tilmaamay boog cajiib ah oo waari doona ummaduna ay jiilba jiil isugu tabin doonto waatan wuxuu ka qoray anoo ku hadlayo yiri codkayga boogan waa boogi ugu qiimaha wanaagsanaa ee diinta islaamka laga qoro sanadka maanta aanu joogno yiri waa 100 sano ka hor wuxuu u noqon doonaa faa'iido yiri dadka muslimka oo dhan wuxuuna siin doonaa guidance jiday raacaan oo ku filan ay kagana wacdaan qaladaadka iyo danuubta iyo dambiga xasadka dhexdooda ah iyo waxyaabaha bidcada ah marka waxa kale booga amaanay xilligaas Sheikh Umar bin Ahmed al-Somal oo ahaa sheekha ugu weyn mashaayikhda Soomaaliyeed ee degan jaamacatul Azhar tireg waya tobte dente furqaano waxa taajiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsan xabiibow hayga taginay محمد يا رسول الله محمد
محمد يا حبيب الله محمد مغنتنا يا محمد. الشيخ عبد الله بن معلم اليوسف القطبي وحو كل شيء قولون ماشي وكل انتو كل شيء دولك الصومالي قلبي هذا كيمي انتو يرى فاميلي علمانا وكيمي dadka deegaankaas ku nool oo dhan dhulkaas qolonqool ilaa harar waxay ahaayeen meelo diinta islaamka lagu barto meelihii ugu wanaagsanaa culimmadii joogto dhan ayuu wax ka bartay markuu yaraa wuu soconayey marba tuuluu tagayey marba meeluu tagayey markuu soo weynaadana wuxuu tagay oo uu lugeeyey azharu ka soo baxay nin diinta islaamka caalim ah oo meel sare ka gaaro ahaa intuu azhar joogay ayuu qoray almajmac almubaaraka way fahmaysaa wuxuu ahaa markaa sheekh weyn oo mashaa'iqdii soomaaliyeed ka mida buuggana waxuu kaga hadlay aad u faahfaahiyey waxyaabaha ummadda soomaalida diin ahaan ay ka fogaanayso iyo siday iimaankeedii iyo dadnimadeedii iyo waxeedii o dhan u sugan lahayd marka sheikhu xataa wuxuu meelahu wareegay waxaa ka mid ah markuu diinta raadinayey ama uu wax isbarayey oo uu rabay intuusan azhar tegin baraa waa ka mid ah xamaraa ka mid a asagoo qolonqool ka yimi waxaa ka mid a saylacaa ka mid a berberaa ka mid a culimmadii hore waa ogeyd soomaaliyeed qarnigii 20aad wixii ka horreeyey gumaysi ka hor waa wareegi jireen meel walbay mari jireen ayagoo cilmi raadis ah marka sheekh cabdullaahi wuxuu ahaa sheekh noocaas ah nin taariikhda soomaalida magac weyn xilligaa ku lahaayo ahaa waana naga mudan yahay 100 sano kadib inaan asagii buuggiisiba xusno buuggiisi koobi ka mid a maanta wuxuu yaallaa jaamacadda London School of Oriental African Studies wuxuu ku jiraa bugaagta la yiraahdo yani reer ee dhahan waa raadir lama helo oo marka meel gooniya ku hayaan haddaa qaadanaysid xataa warqadaa saxiixe meeshan lagalama soo bixi karo librariga dhexdeeda ku aqrinaya bugaagta aan iska soo qaadanoo kale maaha gurigeen aan la nimaanoo kale maaha waa wax naadir ah lahayo marka waa fiicnaan lahayd buugga in dib loo daabaco oo soomaaliya o dhan la gaarsiiyo maanta waddanka lagu faafiyo af soomaalina laga dhigo si aan u ogaano culimmadeenni hore cilmigii ay soo qaadeen oo ay noo soo gudbiyeen annagana laga rabo inaan sii gudbino la sii wado marka faa'iidada uu noo leeyahay taas ah wuxuu culimmadii hore dhanna kaga duwan yahay xilligaa la marayay inay ammaanayaan culamaa udiinka lubnaan iyo masar fadhiyey ammaanoy iyo publisherka isaga u daabacay madbacaddii daabacday oo ku taallo qaahira ilan way aqrinayaan marka hore way fiirinayaan xataa ingiriiska ninkay u dhiibeen boogga intaysa gubin oo cadan qaaligooda ahaa oo yemani ahaa oo u dhiibeen dhay aqri uu ammaanay ee buugga saan ku sheegay waxa ciladeeyey kontonkaas beej oo uu saalixiyey iyo ku daray saalixiyaduna ay ka kacday xilligaasna wixii la qoro dadku aad u abuuri jireen agitation xoog leh marka calaamad noo muujinaysa waa sheekh cabdullaahi qudbi culimmadeenna heerka ay cilmiga ka joogeen 100 sano ka hor iyo maanta meesha ay joogaan waa adag tahay farxaan maanta in la helo buug cilmi ah oo diini ah oo kii sheekh cabdullaahi qudbi 100 sano qoray lamida maanta lama hayo mogido ma jiro oo maanta la qori karo oo nin caalim ah Soomaali ah culimo maanta intuu buugaas qoro dooda ka socdo qaliijka iyo Masar iyo ma fargelin karo wixii dhan loo kale ku soo urureen iyo siyaasadka Soomaali ka dhex jira bas iyo culimo siyaasada bas iyo dad hadlayo dumarka iyo u sheekaynayo bas iyo qisooyin ka hadlayo culimadeena noqotay culimo discursive ah oo didactic ah oo cilmi caalam ka socdo dhex galayo oo Lubnaan laga fahmayo influence-ga ileen saameyntooda Lubnaan laga dareemayo iyo Masar 100 sano ka hor jira maanta ma jiraan farxan ta kugu miimsan taas waa marka cilmiga buugga sheekh cabdullaahi qudbi aa kala soo dhaxbayso adoo mahadsan alla turabta markii la laabo taarku yeero waxaa taabtiyo waxaa taran soo tabcaysay togaaga kii ka soo go'ayeen taqiirmin iyo talkaa tarama ku tarayaan tamaam nuurow adaan tala ka rabnay jidaan dhici doona aakhira loo jarmaado jidkoo janna waa jidkoona jaxiima waaye jamaal nuurow jidkii janna noo jihe